رئيس وزراء كحجينك ولها وزير هذا halkan la jooga gudoomiyaha gobolka Banaadir culimada Soomaaliyeed ee nooga kaltamay dibadda iyo gudaha dhammaan marti sharafta kale bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allah mahadleh oo maanta suurta galiyay inaan ka soo wada qayb galno culimadii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka runtii indhergarad ku ah indhaha u ah ummadda Soomaaliyeed hadday ka yimaadeen dibadda iyo gudahaba iyo dawladooda inay maanta goobjoog ka wada yihiin shirweynahan oo ah sanadkii ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho lagu qabto waxaan rajeynayaa insha Allah sanad walba inay noo noqoto aado noo noqoto oo intaan uu ka sii ballaarto hadduu ay yiraahdo xaqiiqatan shirweynahan maanta dawladda iyo culimadu ay goobjoog ka yihiin ay soo wada qaban qaabiyeen ay ka wada shaqeeyeen macnaheedu waxay tahay in la gaaray waqtigii culimada Soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen kaalintoodii sax ahayd iyagoo midaysan waa ku faraxsanahay inaan arko maanta culimadeennii oo midaysan iyo dawladdoodii oo wada shaqayn toos leh mawduuca laga hadlayo 3 bil soo socotana ay tahay culimada Soomaaliyeed iyo dawladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dib u heshiisiinta tan labaad inaan ka hadalno maxaan ku yiraahdaa xagjirnimada iyo sidii looga hortagi lahaa ama sidii loola dagaali lahaa xaqiiqatan xagjirnimadu annagu waxay noo geysatay dhibaatooyin aad u waaweyn ay ugu horeyso inay la dagaalamaan xagjirka oo annagu aan dhahno argagixisada dawladnimadana inay la dagaalaan ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin shacabkeenna iyo dadkeenna ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin diinteenna suuban ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin quruxdii iyo sharafkii dalkeenna uu lahaan jiray ay cadow ku yihiin sidaas darteed waxaa weeye in culimmadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bil soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa iyo wada shaqayn buuxda culimmada Soomaaliyeed iyo dawladdu ay u lahaan lahaayeen waxaan rabaa inaan idiin sharxo oo warbixin yar idinka siiyo waxa aan ka wada shaqaynayno iyo caqabadaha na haysta waxaa laga yaabaa qof walba inuu soo arko laakiin iyadoo dhab ah waxay tahay waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaaleysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed ay ku xalaaleysteen ama ay burburiyaan dunyadeenna ay burburiyaan taas waa mid waxay ay cadow ku yihiin waxyaabaha caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo iyo waxa aan u naqaano awood qaybsiga oo runtii markii laga hadlayo dawlad wanaag marka laga hadlayo meelay ka soo gali karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meesha ka soo gali karto meel ay ka soo gali karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo wadamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeenu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano siday wax ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tiya yaan gelaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinka aan qabno waxa weeye dhaqamo xumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaan mucaarad iyo waxa loo yaqaan dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan
in lagu kala fakra duwanaado qof walba ra'yigiisu soo jeediyo uu ka hadlo program iyo agenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yiraahdo مثلا dawladdu programyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solution xalkuna waa 1 iyo 2 iyo 3 taasi ma aha mucaarad ma aha waa qof doonaya oo constructive oo doonaya inuu dawladnimada maxaan ku gacan ka geysto dhismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlaayo dawladnimada dhan in geedka jirida loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dawladda dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dawladnimadii ay naga burburtay kadib caado noqotay bacdama aan noqonnay maxaan ku raahdaa week aan noqonnay ama aan tabar darnaanay in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay Soomaaliya fargashato taasna haddii xitaa ay ku heshiin lahayn Soomaaliya inay istaagto waxba ma ahaateene iyaga dhexdooda isu diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo annagoo u fuudeenay oo dadkeenu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo la isu dhiibo shisheeye la isku dhiibo burburka institutionska dawladda haddaad aragtaan dawladda xoog leh waxay haystaa institutions hay-adaha dawladda oo xoog leh oo shaqeeya ayay haysataa oo dadka ka shaqeeya ay maxaan ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin ilaa annaga hadda waxaan ku qaybsanaa waa 4.5 iyo awood qaybsi qabiilaan ku qaybsanaa laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo waxaa la rabaa laba qof oo walaalo ah haddii ay wax tari karaan qarannimada iyo dawladnimadeenna in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yiraahdo ha lagu bedelo si maxaan ku raahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeena way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo civiliankaba ciidanka iyo civilianka labadaba waxaa intaas ugu daran dhaqaale xumo baahsan yaa dawladnimadana haysata wax kalena ma aha aruurintii la aruurinayay canshuuraadkii yaan sidii la rabay ahayn maxaa yeelay dadkeenu dawladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn inay aqoontooda ku yartahay wax dawladnimo tahay oo dawladnimo loo arko wax qof leeyahay shakhsi ah laakiin aan loo arag wax ummad oo dhan u dhaxaysa oo qof walba uu wax ku darsado hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado maxaan ku yidhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof hadduu aqoon-yahan yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisu way tahay inuu ku darsado oo weliba qofku u shaqeeya dawladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwo ka badan ayaa runtii dawladnimadana haysta sida kaliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyna dawlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteena noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas u noqoto dawladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan weyn haddaadan ciidan lahayn ma noqon kartid state qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay
dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisu u kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan oo runtii la tartami kara ama la jaan qaadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeelay culummadu waa indhaha bulshada weeye waa culummadu waa dadka keliya ee shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dhegaystaan markii culummadu ay taageerto dowladdeeda oo caqabadahan aan sheegay ay qayb ka noqoto sidii caqabadahan maxaan ku radaa looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa waxaan aaminsanahay 50% dhibaatada Soomaaliya inay yaraan karto yaan aaminsanahay maxaa yeelay culummadu waxa weeye maalin walbaba waxay ka hadlaan waxa xaqa ah waxa wanaagsan ay ka hadlaan marka waxa wanaagsan oo xaqa ah ay ka hadlaan haddii ay ku apply gareeyaan dowladnimo